السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليال وقتكم هيدين وعنادو ميل كستوت كلا جوجتان الدوك دعالديسا إلهينا هيدين حفظو سيدي عادة إنو هيد مقال عصبان إذي لو ذاقيا بريحان وحن مغلسين إن هوار أول بوحان سميسي هوار أول بدلكي لو ريكتي إن هدنا إد الحراية ماركيسين إد القوانية مجلس ماركيسين إد ما تقانا لا حساب تمي ماركيسين لكن أمدي وفرت الله وفيقيا haddaba waxaan rabaa inaan tuso maanta taariikhda halkay jufadan almamaasaniya iyo jufadan habrawal heshiiska iskala qaadeen goorta ay bilaabeen in ay jabuuti qaybtamaan waxaan sidaan u helno jawaabteeda su-aasha jawaabteeda sidaan u helno waa inaan taariikhda dib u noqono waan horaan idinku sheego waxaan idhi saan u ogaano waxa dhacaya maanta waa inaan taariikh dib u noqono kolka iyaga xogtooda haddaan rabno inaan helno waa inaan dib u noqonaa 1826 marka uu Faransiisku Jabuuti soo degi doono waxa uu u horeeyo furay waxay ahayd xarun baadari ah ayuu furay oo loogu talagalay dadka in lagu gaaleeyo laakiin iyagu waxay oran jireen ilbaxnimada iyo waxbarashada iyo soo wax loo qoro soo wax loo akhriyo soo loo xisaabtamo ayaa ummadda barayna laakiin ujeedada Faransiisku u socday way ka duwaneed wadannada kale gaalada waxay kaga duwaneed waxa weeye wadanka matalan Ingiriiska Isbaanishka maxaan ku raahdaa Portugiiska Jarmalka iyo wadanadan wax gumeystay kale iyagu markay dal gumeystaan kuma degaan markay arkaan in la godooday oo la rabin way iska sii daayaan iska baxaan markay ka baxayaan boqolkiiba bay kaga baxaan faragelin kuma hayaan siyaasadeed wala faragelin dhaqaale Faransiisku ka duwan yahay isagoo marka uu soo degayo Afrikada wuxuu doonaa inuu jiridada amba xididada u gooyo dadka halka degan iyo deegaanka ah si uu dhaqankooda u tirtiro taariikhdooda u baabiyo ay dadkaasi noqdaan dad la dhaqan maxaan ku raahdaa la dhaqan dooriyay markaasuu keena dhaqankiisa iyo afkiisa iyo taasoo qiimeeya marka iskuuladan baadariguna waa meesha waxaan laga faafiyo ubadka agoomada ku bilaabay inay gurtaan ay waxbaraan ay baadarida ku koriyaan qaarna ay gaaleysiiyaan si hoos ahaaneed ah oo loo dareemin marka iskuulada baadariga waxay ku yaaleen ubax baa u horeysay Ali Sabiix baa jirtay Jabuuti iyo Carta hadda iskuuladan baadariga ee la furay dadkii ka dhiganayay waxay ahaayeen dad lagu talagalay in ay halka ay qaadaan qorshahan ay sii fogeeyaan ay hirgeliyaan qorshahan uu doonayo Faransiisku inuu ummadan luqad kala baro dhaqankiisa iyo luqadiisa abu baro waata keentay in Jabuuti laga dhigay luqadda u horeysa lagu hadlo waa Faransiis kuwii haddaba halka ka soo baxay waa kuwii markay weynaadeen uu la shaqeynayay iyagu ka dhigay maxaa ku raahdaa abaalgud wuxuu ku siiyay inuu ka dhigo administratoro maareeyaal xisaabiyaal adu shaqo dawladeed u wada dhiibay waayo waa kuwa isagu tababaray marka ka tababartay adigu ku aaminsan yahay marka ubadkii ay sameeyeen ay dawladii u dhiiban intii uu isticmaalku joogay ee aan ku tirsanayn aan gobonimada qaadan kuwii u shaqeynayay dhan baadariga soo wada koriyahay qaarkood magacooda la bedelay magacyadooda bedeleen magac gaaleed bay qaateen qaarkood magac gaaladna way qaateen laakiin bulshada markay dhex joogaan magaca gaaleed may sheegan jireen magacooda caadiga ay sheegan jireen ubadka agoomaha ummaha waxa meesha la geeniyay waalida iska leh laftigooda waa la geenaysa wax loo baro laakiin ujeedada ka dambeysay waxay ahayd inay hirgeliyaan qorshaha Faransiiska ee dhaqan dooriska ah haddaba halka iskala qaadeen waa halka faavorigii bay noqdeen kuwii ka soo jeeday jufada almamaasaniya iyo jufada hawar awal baa ku baastay gaalka aad iskaga dhaadhicisay markaasi ku ajburtay in ay anfarta halka degan iyo ciisahana laga dhex doorto qaar kulka dad badan oo hatta sawirkooda soo koobi kareen inuu ma soo qaatay dad badan ayaa jira oo dawladda u shaqeynayay u horeysay markii calanka la qaatay iyo horteedba u shaqeynay gaalku kuwa aaminsana waa kuwii gaala iska yeelayaalka waxay ismoodayeen cadaan bay isku haysteenba haddaba waa inaad fahantaan heshiiskan dhacay wax imika bilaabmay maaha dad isnacabna maaha dadkani
maadaama uu gaalkii faransiiska ahaa ee gumaystaha ah uu sameeyey uu dadkan abuuray markaa leeyahay maa ilaahnimo sameeyey maaha dadkan, maadaama uu isagu dhaqankiisii uu soo baray, luqadiina uu soo baray, waxaa qasab ku noqotay in iyaga haddaba uu idhaahdo wada shaqeeya, khilaafka idin dhexeeya iyo maxaan ku rahdaa indifferencekiinana dhinac iska dhiga ayuu ku yidhi, iyo wada shaqeeya waan igu kalsoonahay labadiinaba. waa sababta keentay dowladda markii saami qaybsiga la sameynayay in ay iyagu noqdaan kuwa favoriga ee meelaha halbowlaha loo dhiibo. habar awal waxaa loo dhiibay robert ninkii la oranay muxuu ahaa Jean-Luc Aden la oranayay ee haystay guverneerka ka ahaa banka nationalka Djibouti. Thomas oo finanska joogayay, guryihii cadaanku ay galayeen ee Djibouti ku yaalay waaweynaa markuu cadaanku ka kacayay meesha, habar awal buu ku wada wareejiyey. odaga residence le iyo oday cagweyne la oranayay iyo rag badan oo kale magacdooda hadda aan soo xasuusan iyagu ku wareejiyey gaalku, parce que favorigii bay hayeen, ils étaient des bons élèves. agentyo uu faransiisku samaysta hayeen, qorshihiisana u wada, amarkana ka qaata faransiiska ilaa imika ka qaataan. kuwan kale almamaasaniyana waa idinka arkay instruction kale la siiyey, marka dambe ha ficiltamaan oo meesha ha la wareegaan oo ha qabsadaan. ese waxaani wuxuu bilaabay markaasuu bilaabay heshiiskaasi, gaalkana ka dambeeyey, qorshihii uu gaalku u dhigay federuudkiina way ku saaran yihiin oo way wadaan. marka laydin leeyahay aqligeena waa inuu shaqeeyo muwaadinka reer Djiboutiyo, walaashay muwaadinada reer Djiboutiya iyo walaalkay muwaadinka reer Djiboutiyo, aqligu waa inuu shaqeeyo. war habar awal iyo almamaasaniya labadoodu waa argagixisada geeska Afrika dhibaatada ku haya Soomaalida, dibta ka wada geeska Soomaaliyeed waa labadooda. gaalku iyagu u soo dhibta, iyagu la shaqeeya, iyagu ku kalsooya, wayna iska gadeen oo waxaan afka soo mari karin oo anshax xumaana way sameeyeen si u helaan kalsoonida gaalka. waa gaala yaryar oo dub madow wey. sidaa uu ogaada, mar dambe in shucuurtiina la kicin, in laydinka tucsan, waayo waxaa la rabaa maskax daalis baa la rabaa. hore idinku sheegay dhibta ay leedahay, iminka ciddii ogeyd hore ogeydna baraarujina ha u noqoto inay habar awal iyo almamaasiniya waddanka qaybsameen. haddii labadoodaba la iska qaban waayo oo loo kala exdo, haddii loo kala exdo weligood iyagaa guuleysanaya, laakiin haddii labadoodaba la iska wada qaado, iyaga iyo faransiiskaba la iska qabto oo la idhaahdo faransiiskana war amba siyaasadaada bedel oo ta anaku rabnaad ku shaqayn oo rag xiniile u baahan tahay saa odhan karee, ama raggani labadan jufo meesha way iska joogayaan, saana way naga tucsan doonaan abid. ma ay tiri baa meesha taala, waxa isku sheegu ma xumo, waxa iswadaarsiga daran. markasta waxaan arkayaa in laydinka tucsanayo, aad baan uga xumahay. badbaadadeena iyo guusheena waxay ku jirtaa inaan cadowgeena iyo sadiiqeena kala baranno. wabilaahi towfiiq. wasalaam.